magaciisa oo dhammaystiran waa Sheekh Cabdiraxmaan bin Cabdilcaziis bin Cabdullaahi bin Maxamed Aal Sudaysi. Waxa uu ka soo jeedaa qabiilada la yidhaahdo Canazah oo ka mid ah qabaa'isha markaasi ku abtirsada qabiilada la yidhaahdo Bani Asad, Bani Rabiica, Bani Nazaar. sheekhu waxa uu ku dhashay tuulo yar oo magaceeda la yidhaahdo Bukayriya oo ka mid ah markaasi mandaqada Qasiim 22 November 1962. sheekhu yaraantiisii waxa uu ku barbaaray Bukayriya kadib waxay u soo guureen caasimadda boqortooyada Sacuudiga ee Riyaad. halkaasi ayaa uu sheekhu ka bilaabay waxbarashadiisa. xifdiga Qur'aanka Kariimka ah sheekhu waxa uu bilaabay isagoo da'diisu ay yar tahay. aabihii ayaa waxa uu ku daray markaasi jameeco xifdiga Qur'aanka Kariimka ah. halkaasi ayaa uu Qur'aanka Kariimka ku xifdiyay waxaana isu bedbedelay markaasi macallimiin dhowr ah. xalaqaadkaasi ama jamaacaadkaasina waxaa maamulo ka ahaa sheekh la odhan jiray Sheekh Cabdiraxmaan bin Cabdullaahi Aal Farayaan.